Asalaamu calaykum asxaabay. Badanaa waxaa dhacda in wifi-ga aad ku isticmaalisid kombiyuutarkaaga ama laptopkaaga uu kuu geeyo qof meel kaala shaqeeya ama xafiis ama qof asxaab ah ama meel aad u badan tahay qof jooga oo yaqaana. Marka waxaad u baahan kartaa inaad wifi-gaas ama wifi-gaas passwordkiisa mobilka oo kale aad gashatid si uu kugu shaqeeyo. Marka sidaa ku ogaan lahayd wifi-ga ama wifi-ga si dadka qaarkood u yaqaanaanba ABC-gaaga ama kombiyuutarkaaga laptopka ah uu ku xiran passwordkiisa, waxaad tegaysaa calaamadan iconkan wuxuu yaalaa taskbarka. meeshaan taskbarka la yirahdaa waad ku dul dhufanaysaa. markaad ku dul dhufatid waxaa kuu soo baxaya wifi-ga ku xiran markaas kombiyuutarkaaga ku xiran oo aad isticmaalaysid, magaciisa iyo heerka uu joogo, hadduu full yahay iyo hadduu ilkihiisa meesha ay marayaan, iyo wifi-yada kale oo meelaha kaaga dhow uu kasoo qabanayo laptopkaaga ama kombiyuutarkaaga. marka waxaad dooranaysaa network and internet setting. markaad dooratid waxaad kasii dooranaysaa sidebarka geeskaan ah ama meeshaan ay ku qoran tahay wifi. markaad dooratid waxaad dooranaysaa sidebarka ama geeskaan midigta ah change adapter options. waad ira sugaysaa, kadib waxaad sii dooranaysa waxaa kuu soo baxaya keebalada ama wifi-yada adaptaradooda kombiyuutarka uu isticmaalo. kadib wifi-gaad kusii dhufanaysaa. mar walba waxaad arkaysaa wifi kombiyuutarka uu ku xiraya magaciisa. haddaan midkaan isticmaalay cigaal baa ku qoro, right click baad leedahay. kadib waxaad dooranaysaa status. markaad dooratid waxaad kasii dooranaysaa wireless properties. kadib waxaad sii dooranaysaa security. securitytaan u gudbin wireless properties. markaad ku dhufatid halkan waxaa kaga soo baxaya wirelesska magaciisa iyo SID-giisa iyo network typekiisa iyo dhammaan information yaro kooban oo la xiriiro wifi-gaas. security waa sii dooranaysaa. waa kana passwordka wifi-ga ku xiran laptopkaaga ama kombiyuutarkaaga. calaamadan waxay ku tusinaysaa show characters, nambaradan qarsoon hadaad tirahdid waxaa ka horay calaamadan macnaheed waxaa weye in si aad u aragtid characters ama calaamadaha nambaraha qarsoon in password ku weydiin doono. waan arkaynaa haddii kombiyuutarkaaga uusan password lahayn ama laptopkaaga dabcan automatic buu kuu tusayaa, haddii kale passwordka geli buu ku leeyahay. marka waan ku dhufanayna hadda waxaan isticmaalaya laptop, password baan igu xiran aan aragno. automatically wuxuu weydiinaya passwordka saxqiiji buu leeyahay isbaan leeyahay, then waa kaa password ku xiran wifi-ga haddaan isticmaalayo. sidaas baad kusoo koobiyeysanaysaa. kadibna aad ku qoranaysaa oo aad laptopkaaga ama tabletkaaga kale aad markaas aad haysatid oo aragtid inaad ku isticmaashid aad gashanaysaa. waxaan rajeynayaa inuu casharkan ku anfacayo. subscribe and like video aad baad u mahadsantahay.